qodobka saddexaad oo xadiidka nabiga ku yimi sallallahu alayhi wasallam waxa weeye waa guluulka waxa la yiraahdaa ghaniimada xoolaha lagu qabsado dagaalka iyo jihaadka sharciga ee gaalada laga qabsado inta aan la qaybinin oo dadkii xaq u lahaa iyo ciidankii loo qaybinin in uu ruuxu wax ka xado xoolahaas si qarsoodi wax kaga qaato taasa guluulka la yiraahdaa waxa soo galaya sida xadiista nabiga laga fahmayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xoolaha caamka ah ee dadweynuhu leeyahay ee dawladaha akawnadooda ku jirta iyo hantida dadka ka dhaxaysa ruuxii xaq darro ku qaatay iyadana waa nooc guluulka kamid ah ayaduna waxay kamid tahay asbaabaha ugu khatarsan oo dadka naarta geeya bal quraanka kariimka ilaahay wuxuu inoogu sheegay ruuxii sidaa wax ku qaatay maalinta qiyaamada inuu imaan doono asagoo xambaarsan wixii uu qaatay waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyamah wixii alxaday oo xoolaha iyo hantida ka qaadatay maalinta qiyaamada adigood qoorta ka saaran tahay baa lagu keeni nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arinta guluulka ayuu aad u adkeeyay oo weyneeyay shaanigeeda markaas saxaabada wuxuu ku yiri yaanan ogaanin min idinka mid ah oo maalinta qiyaamada imaan doona asagoo neef geel ah luqunta ku sita neef ololayo ciyaya mid neef ariya tunka ku sita mid faras tunka ku sita ya markaas wuxuu leeyahay rasuulullaahi aghithni rasuulka ilaahay ii kaalme ii gargaar ii caawi khatar baan ku jira markaas waxaan ku leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii la ii soo diray waa ku soo gaarsiiyay dhinaciga mar waa ku soo gaarsiiyay aniga xilkii waa gutay ada halka isdhigay xilli aan wax kula qaban karana ma waa halis marka waxa kale nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sida bukhari iyo muslim ku yimid maalintii nabigu khaybar dagaalkii khaybar uu ku furtay ayaa dadkii meesha socday waxa kamid ahaa nin adoon ahaa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam la siiyay oo u adeegaya rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi asagoo adeegii haya ayaa waxa ku dhacay leeb soo lumay oo baadi ah meeluu ka soo baxay aan la garanaynin ayaa ku habsaday ninkii waa dhintay saxaabadii waxay yiraahdeen hani'an lahu bil janna tahniyad waa loogu tahniyadeeyeen inuu jannada galayo laana shahaadu qaatay iyagu arkaan ilaahay dartii baa loo dilay biilay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kalla ma ya saad moodeen ma tahniyad janna loogu tahniyadeeyay meesha ma taalo sababtu waxa weeye maradii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu xoolaha ghaniimada ka qaatay oo ka xaday inta aan la qaybinin maradii iyada ahayd baa korkiisa ku holcayso gubanaysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam naar iyo waxa isu bedeshay dab holcaya maradii baa korkiisa ku gubanaysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam idinkuna jannada ugu tahniyadeynaysa markay dadkii hadalka maqleen rag badan oo wax yara qaab qaaday baa jiray ninba wixii uu iska soo celiyay ninba wuxuu keenay wax yar oo yaani wax weeyaan kabta marka la qabo cidibteeda suunka yarka ee mara ee kabta haya indhasha intaasoo kale tabu nin keenay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa indhal naar ah mid kalena labu keenay saasoo kala waa laba naarood buu nabigu sallallahu rabbi wasallam alayhi warkaasi waa inuu gaadho dadka u kala baratamaya u kala ordaya xoolaha dadweynaha inay qaataan meelaha nafcigu leh u kala yaacaya guryaha ka dhistay magaca ku yeeshay shirkadaha ka samaystay ka noolaaday ku tamishlaynaya waa inay ogaadaan maalinta qiyaamada markay yimaadaan wax badan inay xambaarsanaan doonaan iska cun oo noolow oo tamashle oo guro oo tolka iyo qaraabadaada ka noole laakiin waxaad ogaataa maalinta qiyaamada iyadoo ku saaran
ayaa amaama alkhalqi lagu keeni doonaa laguna fadeexayn doona ka warrama haddii nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadaaya alcummaali ghuluul dadka shaqaalaha dowladda ah mid hoose mid kor ha noqdo shaqaalaha dowladdu wixii hadiyad ee la siiyo waa khayaano hadiyad madaxweyne hadiyad loo keenay hadiyaddaa inuu qaatayo waa xaaraam laanna hadiyaddan waxaa lagu siiyey waa kursiga kursiguna waa ammaano oo dadkaa iska leh shacabkaa leh ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha kuraastani waa ammaano ehelkeeduna waa shacabka iyo raciyadda iyagu ma laha ka ku fadhiya ma laha hadiyad baa loo keenay kursigaa keenay markuu bannaanka iska joogay lama siin jirin waa wasiir hadiyadaa loo keenay ma uu laha kursigaa iska leh kursiguna waa ammaano shacabkaa iska leh gobol buu ka taliyaa sidoo kale meel hoosuu joogaa sidoo kale dowladdaa dirsatoo shaquu soo qabanayaa sidoo kale hadaaya alcummaali ghuluul shaqaalaha dowladda wixii hadiyad loogu keenaayey waa ghuluul nooc min alghilli waaye waa khayaana sidaas daraaddeed ka warran hadiyaddii loo keenay hadday khayaano iyo ghuluul noqotay tii asalka ahaydee shaqaba uusan ku lahaynee bangiga ku jirtay ee dadweynuhu lahaayee shacabku lahaa ka warran ayadu xaggay taallaa sidaas daraaddeed man faaraqa alruuxu jasadah wa huwa barii'un min halaath dakhala aljanna nacam alkibru waddaynu waalghuluul صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا